waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle kulan ku yeeshay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee heer qaran dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle iyagoo ka wada hadlay xaalado dhowr ah. ugu horeyn meesha waxaa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed isagoo ugu baaqay in ay garab ka siiyaan doorashooyinka ka dhici raba magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. maanta waa maalin weyn oo farxad weyn noo ah inayna soo booqdaan guddigii doorashooyinka ee madaxa bannaanaa ayadoo aan ku jirna doorasho aan u diyaar garoobayna. waa munaasabad aad u fiican, aad iyo aad aan muxuu ahay ugu faraxsannahay. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leenahay caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ku soo dhawaada ee Jowhar waa idin soo dhawaynaynaa. waxaan aad ugu faraxsanahay inaad noo timaadaan, waxaan aad ugu faraxsanahay inaad mar labaad iyo mar saddexaad noo timaadaan. waxaan maqsuud ka nahay ama raalli ka nahay shaqada aad wadiin. waxaan diyaar u nahay wax kastoo aad u baahantihiin oon kari karno inaad idinla qabanno. maanta waxaa halkaa fadhiyay guddigii doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle oo ah guddi loo magacaabay inay daadihiyaan doorashada muxuu ahay madaxtinimada ee dowlad goboleedka Hirshabelle. waa runtii waxaan leeyahay munaasabad aad iyo aad u wanaagsan oo waqtigii loo baahnay kusoo beegantay. idinkana waxaan idinka codsanayaa in nagala qayb qaadataan, waana noo ballan qaadeen inaad muxuu ahay hawshaasi nagala qayb qaadanaysaan. maxaa yeelay doorashooyinka qaranka waxaa ka mid ah doorashooyinka muxuu ahay ee dowlad goboleedyada ka mid ah. yacni waa waxyaabihii ladin igmaday inaad muxuu ahay ku kordhisaan muxuu ahay wixii khafridiina ah, wixii aqoontiina ah, wixii waayo aragnimadiina ah, wixii tala iyo tusaalooyinkiina inaad nagu kordhisaan aad iyo aad muxuu ahay u baahannahay. dhanka kale waxaa ka hadlay Xuseen Cabdi Aadan oo ah kusimaha gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan isagoo sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan doorashada ka dhacaysa 12 bishan dowlad goboleedka Hirshabelle. runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa gudoomiyaha sidii wanaagsaneed xalay iyo maantaba ay noo soo dhaweeyeen iyo guud ahaan sidii Hirshabelle labadii maalmood ee aan joognay naloo qaabilay oo naloo soo dhaweeyey. waxaan u aragnaa in dadka reer Hirshabelle ay yihiin dad dowladnimada iyo la shaqaynta hay'adaha dowladda diyaar u ah. waxaan tixgelin doonaa haddii la yiraahdo codsigii ay noo soo gudbiyeen oo doorashada inaan ka soo qayb galno ahaa. waxaan kaloo tixgelin doonaa intii aan ka gaarno insha Allah codsiga ah in guddiga qabanaya doorashada madaxweynaha wixii tababar iyo tashiilaad aan u sameyn karno aan u sameyno. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba mahad u celinayaa gudoomiyaha iyo madaxda kale ee Hirshabelle oo runtii noo muujiyeen inay yihiin dad ay ka go'an tahay inay ka shaqeeyaan maslaxadda dadka iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. 12 bishan aynu ku guda jirno ayaa waxaa la filayaa in magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ay ka dhacdo doorashooyin walow ay hadeer musharaxiinta ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Alfa TV-ga caalamiga ee magaalada Jowhar.